halkan waa xarunta Villa Hargeysa ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa maanta ku kulansan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana loo diyaar garoobayaa ansixinta dastuurka dalka oo markii hore ahaa ku meel gaar haddana noqon doona dastuur rasmi ah kadib markii ay ka shaqeeyeen gudiyada u xil saaran iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Soomaaliya muddo dheer ayaa lagu soo jiray qabyaatirka dastuurka federaalka Soomaaliya oo marba dib u dhacayay laakiin maanta waxa loo joogaa gabagabadii iyo ansixintii ugu dambeysay waxaana haddii la ansixiyo maanta oo kulankan lagu ansixiyo dastuurka dalka ay noqon doontaa maalin weyn oo markaas dadka Soomaaliyeed ay muddo dheer sugayeen oo laga bixi doono qabyo iyo ku meel gaarnimo oo dastuurkeenu ku soo jiray sanado badan sanadkii 2012 ayaa dastuurkan ku meel gaarka ah ee hadda wadanka lagu maamulo la ansixiyay balse hadda dastuurkan haddii la ansixiyo sanadkan 2026 wuxuu noqon doonaa dastuur rasmi ah oo Soomaaliyeed oo aan qabyo ahayn waxaana ka bixi doonaa qabyadii haddii maanta kulankan lagu ansixiyo dhammaan xildhibaanada ayaa ku sugan intooda badan kulankan inta hartana waa ay soo gaarayaan goordhowna waxa lagu wadaa in guddoonku soo galo oo markaas kulanku uu furmo diiwaan loo cad warbaahinta qaranka Muqdisho.